waa waqti dahabi ah, waana waqti uuna jirin qiimo gooya. Dadkan dunida saarana kama faa'iidaystaan ilaa in yaroo guul raadisa mooyaane. Waa waqti aad degan tahay, nasiimo dheerna aad ka soo kacday, waana saacadihii bedeli lahaa noloshaada. Walaalkay ama walaashayay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale muuqaal kale oo xiiso leh. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Balse intaynaan muuqaalka guda gelin, muuqaalka like saar, sidoo kale subscribe channelka haddii aad nagu cusub tahay. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsantahay. Ciidda xilli hore waa hadiyadda ugu weyn aynaan aqoonin qiimaheeda aynanu dayacno. Waa shay boqolkiiba boqol noloshaada beddelaya, waana caadada ay leeyihiin cid walba oo nolosha heer ka gaadhay guulana xaqiijisay. Haddaba faa'iidooyinka laga helo waxaa ka mid ah firfircooni, wax soo saar badan. Subaxii markaad xilli hore hurdada ka kacdid, waxaad noqonaysaa qof wax soo saar leh, caafimaadka maskaxdaada oo kordha, iyo ka jidhkaaga farxad badan oo aad maalinkaa dareento iyo nashaad. Subaxu waa seeska hoose ee maalinka. Haddii aad ku bilowdo si dhiiranaan iyo furfurnaan leh, waxaa hagaagaya maalinkaaga. Subaxii markaad xilli hore soo kacdo, waxaad leedahay awood aad wax kasta ku qabsan karto, balse haddii aad waqti dambe soo kacdo, awoodda jidhkaagu way sii yaraanaysaa. Subaxdii markaad xilli hore kacdo, waxaad awood u leedahay inaad qabsato waxyaabo badan oo la taaban karo, halka markaad hurdada ku daahdo aad la bilaabanayso bilow khaldan, kadibna aad dareemayso fashil iyo hoos u dhac. Haddaba haddii aanad awoodin inaad subaxii xilli hore kacdo, waxaad ku dadaashaa inaad wax ka beddesho jadwalkaaga maalinlaha. Haddii aanad lahaynna, imika samayso. Haddaba haddaanad adigu naftaada isbeddel ku samayn, yaad ka sugaysaa inay isbeddel ku samayso? Haddaba goorma? Wassalaamu calaykum.